haddaba waad ogsoon dejijiyo gudaheeda qaar baa propagandooyin sameynaya been abuura in isku dhacyo ay jiraan hogaamintu kala qaybsantahay wax ka jira ma jiro waa been weyn marka hogaamin midaysan oo aragti midaysan ummadda ku hogaamisa ummadana midnimo ku hogaamisa nidaam xisbiyeed ku hogaamisa guddoon dhexe xisbinimada ay yeelato waxa weeye waa arrimaha ugu muhiimsan in si buuxda loo hirgeliyo deegaanka looga baahan weeye taasna marka shaqooyinkaas in si buuxda loo hirgeliyo ugu muhiimsan arrinta dheesa hogaamintii hore hogaaminta cusub waa concept aad iyo aad u khaldan kala qaybinaya xoogga xisbigana inuusan midoobin yeelayo wey taas daraadeed taas in laga waantoobo looma radoo qaadanayo qodobada noocaas oo kale waa mid qiimeyna la samayn doono dadka waxaas ka shaqeynaya aragtidaas ama kala qaybsanaanta sameynaya waa mid qiimeyn aan ku caddeyn doono ayay noqonaysaa wax farqiga loo dhexeeya markay noqoto jihada la qaadanayo hadda ma jiro waa yaraate taas maadaama la jiro in inagu aynaan ku welmin dad fara badan oo meel ay cidiidiyadaan raadinaya oo fara badan oo deedna u baahan in ciidu kala fido niba meel uu galo buxiis u helo inaynan ku welmin baa muhiima si ballaaran baan uga wada hadalnay oo uga xajoonay arrimihii maaragtay maalmaha ku jira suuq oo dhan isfahan guud iyo qaabka marka loo soconaya baan ka wada qaadanay idinkan saasaa idinka rabaa waayo haddaan inagu dhexdeeda qaybsanaano dee waxaa weeye noqon wadi karno haba yaraatay xoog fara badan oo wada gacanta ku helay banaanka way joogaan dad fara badan kalaa jira dulooyin badan baa jira soomaali dhexdeeda iyo soomaali kuwaan ahayn baa cadow badan baa jira marka haddaan cadowiyadaas oo dhan oo jira haddana inagu isku sii mashquulo oo isu dulqaadan weyno oo xitaa meelaha aragtida laga yaabo inuu kala duwan yahay isu keeni waayo laga wada hadli waayo si xataa ku jirto wareer baan gelayna marka waxaan u baahannahay inaan midnimo kala tagno meeshan dadkana aan midnimadaa u sheegno aadna aan loogu mashquulin qaab dhismeedkiisu noqonayaa kan taas aakhirka inta la isga yimaado baa laga xajooda sidii laga yeelay kaadmeyga waxaa ujeedadu tahay oo jihada xisbigu yahay in dad taya leh oo la tartami kara etoobiya dhexdeeda tartan la geli kara oo aqoon leh oo bulshada ku kalsoon tahay ay xagga hoos u maraan xisbiga wax taa ka duwan oo aragtida ma jirto abeeraad si kastaba ahaatee hadalka labada mas-uul ayaa waxa uu noqonayaa mid soo afjaraya hadallo badan oo sheegaya in ay jirto kala qaybsanaan u dhaxaysa hogaaminta xisbiga dhexdiisa xidhitaanka tababarka hogaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya oo 3 maalmood ee ugu dambeeyay ka socday macadka maareynta iyo adeega shacabka ee magaalada Jigjiga ayaa ahaa mid inta badan lagaga jawaabay weydiimaha iyo aragtiyada kala duwanaa ee ka soo baxay maalmihii uu tababarkani socday waxaana xidhitaanka tababarkani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya ahna wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka deegaanka mudane Aadan Farax iyagoo ka jawaabay weydiimaha ay soo bandhigeen hogaaminta sare oo inta badan ku qotomay nidaamka dimuqraadiyadda tawriga ah ee ku dhaqmo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya sida ku cad barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida barnaamijkan qaadanay waa dimuqraadiyadda tawriga ah iyo jihada horumarinta iyo dimuqraadiyadda development and democratic jihadaasan qaadanay dimuqraadiyadda tawriga ka xisbi ahaan qaadanay waa mid ku salaysan ideolojiyadda hantigoosiga ama capitalismka haba yaraatee wax xidhiidha oo ay la leedahay socialism ma jirto kolkaa waa capitalist ideology political reformga barnaamij ku dhex jira waana program dhinaca kale waxaa muhiim in la fiiriyo social based ayaanu halgana ayaanu u taagana ka xisbi ahaan kolkaa barnaamijka dimuqraadiyadda tawrigeenu qaadanay waa mid u taagan xoolo dhaqata beeralayda iyo dadka kale dakhligooga hooseeyo kolka optionka kalenu haysana waa maxay in la isweydiiyo social democracy macnaha wuxuu natiijo yeelanayaa marka wadanku gaadho kobac sare dhaqaalo kobacay markuu jiro ayuu effective noqdaa social democracy wuxuu u taagan yahay shaqaalaha su-aasha kale la soo jeeday waxa weeye kama noqoshada EPRDF in la faahfaahiyo iyadoo la eegayo habnololeedka bulshada Soomaalida bahwadaagnimada xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida iyo EPRDF waa mid ku salaysan heshiiskii la galay 1998 sida tirsiga Itoobiya heshiiskaas oo
ururka EPRDF iyo dhammaan axsaabta bahwadaagta la ee hogaamisa deegaanimada soo koraya ay kala saxiixdeen waxaana aasaas u ahaa maadaama axsaabta deegaanada soo koraya hogaamiyey xisbiga EPR ama ururka EPRDF ay leeyihiin jiha siyaasadeed oo mid ah EPRDF iyo xisbigeena iyo axsaabta kale nala midkiiba waxay ku dhaqmaan jihada horumarinta iyo dimuqraadiyadda waxay u halgamayaan inay dhisaan developmental democratic state waxay aaminsan yihiin barnaamijka dimuqraadiyadda tawriga kolka dhinaca barnaamijka iyo dhinaca jihada siyaasadeedba maadaama aan wadaagno taas aasaas u noqotay dhinaca kale waxaa aasaas u ahaa xurmaynta iyo dhaqangelinta dastuurka ururka EPRDF iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida waxaa ka go'an in dastuurka la xurmeeyo isla markaana si dhab ah loo dhaqangeliyo oo la ilaaliyo xuquuqda aadamaha iyo kuwa dimuqraadiyadda shacabka intiina meesha fadhida xisbiga idinka iskale cid kale oo xisbiga idinkale ma jirto idinka hogaamiya xisbiga talada xisbiga uu idin dhibtay baad heesaan mas'uuliyad weyn baa idinka saaran waxaa maanta halkan noogu soo xidhmay shirkii socday ee ku saabsanaa arrimaha xisbiga ee hogaaminta sare ay ka qayb qaadanaysay isla markaana guddoomiyaha laga bilaabo ilaa amraarka ugu sarreeyo heer kelil ilaa gobol ay ka soo qayb galeen qaab aad habsami ayuu u dhacay shirkani waxaana runtii ka soo baxday oo muuqatay in bislaansho sare si ku jirto oo garaad sare ah oo wax ku salaysan danaha ummadda uu ahaa wixii laga doodahayay su'aalana looga dhigahayay wixii faahfaahin u baahan mas-uuliyiintii sare saddexdii cisho sidaas ayuu u socday ugu dambaynna saaka ayaa lagu soo gabagabeeyey oo lagaga jawaabay su'aalihii muhiimka ahaa maaragtay ku saabsanaa danaha ummadda iyo xisbiga aragtida uu ka qaba iyo wuxuu ka taagan yahay marka aad baana loogu farxay in runtii dad heerkiisa fahan aad u sarreeyo inuu maaragtay ku sifaysnaa maanta amraarka meeshani ka soo qayb galay tababarkii saddexda cisho aan soo qaadanaynay runtii aad iyo aad mid u fiican buu ahaa mid hogaamin tayo leh dalka iyo deegaanka badan u ah hogaamin fiican oo tayo leh oo karantin lagu soo saaray bay ahayd hal aragti oo midaysan lagu qaadanay bay ahayd mid aan weligeed deegaankaana ka dhicinna way ahayd oo qof walba fikirkiisa aragtidiisa hogaamineed uu ku dhiibanayo jawaabihii maanta guddoomiyaha xisbiga iyo madaxweynahaba ay ka bixiyeen iyo madaxweyne ku-xigeenkumana mid hogaamineed oo aragti hogaamineed leh ayay ahayd mid hogaaminta deegaanka maanta saddexda cisho ee tababarada qaadanaysa ee gobolada iyo heer deegaanba isugu jira ay ku wada qamcinna way ahayd mid lagaga faa'iidaysanayo shacabkii maanta baahidiisa iyo dhibaatooyinkii deegaanka soo maray iyo dalkaba soo maray lagaga baxayo oo loogu danaynayo aragti horumaneed aragti siyaasadeed isku dhacyada qoomiyadaha oo ay ka dambeeyeen dad ku danaysanayay horey u abuureen in si waddo walaalo ah si wanaag ah laisugu soo dhoweeyo inta badanna way lasoo wada afdhajaray sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha noo sheegeen waa dhammaystir wixii hadda ka dambeeyana waa wax u yaalla hogaamintan tababarka saddex maalmood socday ee maanta noo soo xidhmay waxaan ka faa'iidnay wax aad badan marka koowaad waa la isqanciyey xisbiguu isqanciyey wuxuu isku qanciyey dhibaatooyinkii magaca xisbiga lagu soo sameeyey qaabkii ay ahaayeen iyo sidii macnaha ay u dhaceen si dhaba ayaa laisugu caddeeyey waana la iska qanciyey xaqiiqiyan anigu waxaan ugu qancay ama dee dadkiiba aan arkayay waxay ku qanceen si xad ah waxaa weyn aad baan ugu farxsana macnaha insaan loo qanciyo xubnaha ama aduu mas-uuliyiinta ugu sarreeya deegaan xisbiga xubnaha xisbiga inay ku qancaan horta xisbigooda iyo macnaha qaabkan maanta wax u socdaan hogaamintana wallaahi waan ku farxay horta shucuurteeda aad bay bedeshay nidaamka loo hogaaminayey tababarka aad iyo aad baan ugu farxay macnaha bulshadana aad iyo aad iyo aad ayay u bedeli doontaa marka hoos loo dhaadhiciyo xaqiiq baa la isku sheegaya
dimuqraadiyad baa iminka toos oo xorriyatul qowlkiiba yaa friya qaabkii loo doodayey 3 maalmood doodihii socday wax loo doodayey si ikhtiyaariya qofku fikirkiisa oo xor ah ayuu ku doodayey soo bandhigay